ku soo dhowaada hoyga maansada Soomaaliyeed. Bismillah, magacaygu waa Nimco Axmed Faatax, ku magac dheer Goobe Caro. Halkan waxaan ku duubi doonaa maanta gabay la yiraahdo dhaladkii Sanaag, oo gabay jacayl ah. Gabaygu wuxuu ku bilaabmi doonaa qalbi dhaarsan maan kuu dhanqalan oo dhanaba aadin, xiskan aad ku dheeraatay aad culatay dhiilkiisa, iyo laabtan kugu dharasan baa kaa dhisuga jeere. Dhaladkii Sanaag baa tihiye dhaamankii baraye, dhaqankii akhlaaqdaada wacan dhiiri hadalkaaga, dhugmadiiyo jaleecada cudoondhaha midabkaaga, raganimo nin lagu dhaabay oo dhiiran baa tahay, rabi kuma dhantaalee cishqiga in laygu kaa dharashay, ismihiisa noqo oo qalbiga dheeli ka ilaali, anna dhaawacaad mudato baan dhaymihii noqone, isma dhaafno jeeran dhintoo iilka lay dhigo adna ha iga dheeraan qalbiga waad dhex hurdaaye, ma dhaqaaqo ruux caashaq dhilay oo ma dhiidhiyo dhadhamada ma quuto ma dhamo dhayda xoolaha sida qaalin dhigotooday baan qori ka dhuubnahaye, dhib ma qabo la sheego misena dheelmad baan haye, dhimirkiiyo garaadkaad raggana qiimo dheer tahay ila dhugo xanuunkani dhambalay waa dhib iyo hawle, ila dheeho waayaha dhabtaa oo ha dhicisoobin, ila dhugo waxaan dhaadanahay oo iyara dhiiri, dhibta ila wadaag oo hodhan way ku dhaawiciye, dhidigaansho uun haygu tirin ruux dhan baan haye, oo dhiigga saan kuugu shubo igu gara dhuuxa, oo ruux dhulyaaluun ha noqon dhimasho weeyaane, dhabeel buu raguba dhaadayo taan anigu dheh.